muuqaalka halkan idinka muuqda waa qayb ka mid ah ayaxaad u tiro badan oo muddooyinka ugu dambeeyey farabaas ku hayay beeralayda deegaanada Somaliland oo xataa ay gaadheen qaar ka mid ah beeralaydaasi ay sidii ayaxaasi beeraha uu ku degay uga kicin lahaayeen ay u adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. ayaxan oo horaantii sanadkan in ku guda jirnay gabagabada soo gaadhay deegaanada Somaliland isla markaana uga soo tallaabay dhinaca wadamada Carabta iyo qaar ka mid ah wadamada qaaradda Afrika ayaa wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland oo ka duuleysa cabashada ka soo yeedhay beeralaydaasi waxay maanta tiiman ku gaashaamaan gaadiid kala duwan oo sida sun lagu buufinayo ayaxaasi maanta waxay u kala dirtay deegaanada gobolada bariga iyo galbeedka sida uu sheegay Axmed Muumiseed wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland oo maanta isagu ka hadlay munaasabad lagu anbabixinayay tiimamkaasi. sanadkan aynu ku jirno bilowgiisii ayuu ayaxu dalka ku soo bilaabmay waqtiguna soo bilaabay ilaa imika intii wasaaradda awoodeeda aanu tacaalaynay halka saaka waxa ka baxaya 8 baabuur oo ay shaqaalaan heegan u yihiin inay raacaan 8 baabuur waxay u kala baxayaan gobolada bariga Somaliland iyo galbeedka Somaliland ay saaka u kala baxayaan 4 baabuur waxa jeedo ku jirto qalabka u sida iyo saadka bari bay u baxayaan 4 laan gurusel oo xaajido ku jirta waxa u bixi doonaan galbeedka Somaliland tiimankaas waxay hawlgalka sii wadi doonaan muddo 12 cisho ah bay shaqeyn doonaan ayna soo noqonayeen hadii la yiraahdo waxa laga hawlgaliyay ay u baxayaan waxa weeye la dagaalanka ayaxa oo runtii dhibaatooyin weyn nagu haya hadda wadanka ku haya ayaxu marka waa labo mid waa midkan ayaxa hadda lalaya ee socda midna waa koronkortii kii hore ka tagay weeye marka hadda waxa dagaalku kow labada aagba waa laga dagaalamaya ayaxana wixii awoodayada waanu la dagaalamayna koronkortana waanu la dagaalamay inteena bixin inteena kicin ayna ayax noqon baan iyadana la dagaalamayna iyadoo aan la kaashan doono dadka deegaanka insha Allah hadii la yiraahdo marka waxaan wargelinayaa dhammaan barsaabada gobolada isku duwayaasha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolada Jamhuuriyadda Somaliland oo dhan inay si dhow ula shaqeeyaan madaxda departmentka ama waaxda u qaabilsan ayaxa oo hal tiimka halkan taagana tiimkana wuxuu ka kooban leeyahay 22 shaqaale iyo ku bixi doonaan oo ay baabuurtooda hadda diyaar u tahay iyadoo saadka shaqaaladooda aan si muxuu u dhameystirnay iyo waxay ku noolaan lahaayeenba waxaad ogtiin inuu runtii Afrika oo dhan dhibaato badan ku hayo shirku waa uu ka qayb galay agaasimka waaxda ayaxa muxuu ahaayay Suudaani imika Addis Ababa laga hadlayay adduunyadu ay iskugu timiday ilaa 20 wadan bay iskugu yimiday 20 ka wadanba waxay ka cabanayeen dhibaatooyinka ayaxa laga cabanayay waxa kulleeyto marka hore inta oo dhanba la sugay waxay ahayd sunta lagu buufinay ayaxa oo runtii dood badan ay ka taagneed maxaa lagu buufin karaa maadaama aynu barkadihii iyo biyihii ay dhug meel walba taagan yihiin marka hadda waxa lagu buufinaya waxa weeye waa dawo dabeeciya oo haba yaraatay aanan biyahan waxba yeelayn duunyadana waxba yeelayn dadkana waxba yeelayn baan ku buufinaynaa. Abdirahmaan Abdullaahi Fantastic Ariel TV Hargeysa. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.